horta aad baad u mahadsan tahay inaad soo ajiibtay muxuu ahaayey codsigii iyo maaragtay inaanu kusoo ballaminay oonu adigana waqti maaragtay aanu kusoo jiidnay aad baad ugu mahadsan tahay walaal aad bay iigu badatay su-aasha marmar baan halkan live soo galaa so mostly software development iyo waxyaabaha aan ka hadli karayaan ka hadlaa then haye maxamed then waxa dhacday waxa su-aalaha aad iigu badatay cyber security-ga so de wixii dusha inaan topiga waxyaaba yarare basic aan ka hadli kara mooyaane iyo courses meelahaad ka heli karta iyo waxyaabaha mooyaane si dhiiba uma geli karna ama opportunitieskaysa iyo waxyaabaha kama hadli kara maadaamoonan ku dhex jirin anuu fieldka marka waxaa yidhi ninkii axmed soo qabo si maaragtay insha allah looga faa'iidaysto oo waxyaabaha su-aalaha ay qabaan dhalinyaradu oo intii aan kuu soo diray majoritygeedu ah in aynu horta ka fargarayno so then su-aalo yaryar aad qaadato hadduu ilaahay idhaahdo marka muxuu ahaa marka aynu livekana waan duubaynaa so hadhow waan soo post garayn doonaa si kale I think Facebook or somewhere baan kusoo post garayn doonaa ama YouTube-ka hadduu ilaahay idhaahdo markaas soo dhawow introduction yar samee oo maaragtay dadkaan ku garanaynin bal inay ku bartaan Axmed Deeriye specifically muxuu ka shaqeeyaa maxaad fieldkaagu muxuu yahay maxaad khibradu leedahay then from scratch saasaynu ku bilaabaynaa insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب العالمين آمين dhammaantiin ba horta waan islaamay salaam allah calaykum cabdiraxmaan oo adiga iyo tiimka barnaamijka aad ugu soo codsateen ilaahay aan ugu asturo ninka dila hadlaya waa nin bartay ICT-ga digriga ku qaatay Armas University kadibna master ka diyaariyey cyber security-ga oo Turkiga kusoo diyaariyey kuna shaqaynayay for the last 5 years fielka cyber security-ga waqtiga qaarkoodna waa bare jaamacadaha wax ka dhiga courses kan dhigaana waxay u badan yihiin networking iyo security marka barashada Axmed Deeri waxaan filay intaas ayaa inagu filan dabeetana waxaan u guday geli doonaa wixii su'aala horta tiimka ku dhageysanayana waxaan ka raali gelinaya waa first TikTok live uu soo galo wadaadku markaa samaacadad ka sheekeynaysaane mobilka sida loo qabanaya baan ilaaway codku inta awoodeeda xaafadda waa la hordayay inta awoodeeda kor baan u qaaday aad iyo idinkuna aad baday la saayiri doontaan in yar aan kaa soo dhex galo walaal dhalinyarada soo qabtale please waan muxuu ahaa su-aalaha waynu weydiin doonaa laakiin isagaa guest inoo ah Axmed isagaynu ka faa'iidaysanaynaa su-aalahan hayana waan weydiinayaa markaa dhegeysi wacan su-aalaha wixii aad haysaanna maaragtay insha allah halkan kusoo qora commentiska maaragtay live-kuna live ixtiraam ka muuqda ha noqda insha allahu tacaala okay inoo wada Axmedow bas wanaagsan marka waxaan u gudageli doonaa haddii alla ka dhigo kulli su-aalaha lagu soo weydiiyey halkana waan arkaya in su-aalo lagu soo qorayo laakiin indhahay ka gaadsin karmaayaan waxa la soo qorayo ha isku dawaqinin dhib male ha isku dawaqinin aduu waxaynu sideena iskaga wadanaynaa jendeeneen ku soconaynaa good marka su-aalahaada inoo bilaabi haddii alla ka dhigo so inoo bilaabo su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan qof aan prior experience u lahayn oo aan cyber security meel ku dhiganin marka koowaad siduu u bilaabi karaa taa waxaana noogu horeysay horta cyber security muxuu yahay yes cyber security muxuu yahay okay wanaagsan cyber security team ka soo qoray cyber security waan arkayaa yes
cyber security horta waa kelmad dhawaan soo baxday intii ugu dambeysay 2013 12 ka dambeeyay markii hore information security baa la isticmaalay way ila soo koobo waxa weeyaan waa ilaalinta xogta taalla internetka ama qofka computerkiisa dhex taalla lagana ilaalinayo weerarada ka yimaada external inta badan marka waxaa jira saddex erayo la soo koobo oo CIA taagan confidentiality iyo integrity iyo availability marka qofka daatada uu haysto computer ku dhex jirta ama uu dirayo ama isaga loo soo dirayo ayaa la doonayaa in la ilaaliyo lagana ilaaliyo wixii cyber attack way cyber security intaasuu noqon karaa waa askari internet Soomaaliyeeno askarta internetka yes okay thank you very much haddaba su-aasha ugu horeysa waxaan qofku halkeebuu ka bilaabi karaa muxuu ahaaye cyber security halkeebaa laga bilaabi karaa muxuu ahaa waxbarashadiisa amaba qofka aan experience hore u lahayn maanta muxuu ahaa horta jaamacad dadka jaamacad gelaya oo kale ku bilow dadka jaamacaddu ma field caadi oo la qaataa oo degree laga qaataa mise muxuu ahaa wani codkayga lama maqlayo miya kaaga aan la maqlayn makayga aan la maqlayn dadku ma waxay doonayaan iyo dee maya earphone hagaagsan qaata anu axmed si fiican baan u maqlayaa say wax u jiraan ya si fiican baan u maqlayaa aniguna marka waa si fiican axmedow qofka aan experience hore lahayn ee beginnerka ahi sidee buu u bilaabi karayaa muxuu ahaayey in uu barto ama halkeebuu ka bilaabi karaa cyber security way waxaan filay waxay doonayaan markaad su-aasheed weydiisay anigu aan hadlayo inaad kaaga muutaad saartid bay leeyihiin wax ka akhriya arag qofka aan cyber security-ga aan experience aanu lahayn halku ka bilaabayo horta kow cyber security-gu wuxuu u baahan yahay aqoon hore oo la sii barto marka isagu SES buu u baahan yahay SES-kaasi inta badan waa inuu qofku fundamental of computer yaqaanaa sida computer systemska siduu shaqeeyaan Windows-ku siduu shaqeeyo Linux siduu shaqeeyo ilaan hadda kuwaasaa la doonayaa in la ilaaliyo qofku waa inuu basic of networking laba computer sida u wada hadlayaan oo TCP/IP protocolski u yaqaanaa basic of programming waa inuu wax ka garanayaa webku siduu shaqeeyo waa inuu yaqaanaa marka fundamentalkaas afarta ah ama saddexda ah baa loo baahan yahay horta inuu qofku yaqaano kolkaasuu bilaabi karaa cyber security-ga marka fundamentalka basic ayno ah waa computer systems Windows Linux Active Directory Windows-ku siduu shaqeynayay server-ku siduu shaqeynayay networking-ku siduu shaqeynayay laftarkiisa protocolada kala duwan ee la isticmaalo marka website la booqanayo waa inuu qofku garanayaa siduu u dhismayo codsigu kolku barto shaygan siduu u shaqeynayay markaas ayuu ilaalintiisa iman karaa marka fundamentalka markuu inoo soo barto waxa ku xigaya in uu wixii free resource jaamacadda intaanu la gelimayo jaamacadda basic inta badan baa lagu soo dhiganayaa oo hadda waddankeena ma aqaan meel degree ku bixinaysa cyber security degree lagu bixinayo cyber security degree-ga la bixinayo inta badan waa information technology software engineering computer science inaa intaa uu soo barto way ka caawinaysaa barashada cyber security-ga kolkaasuu dooranayaa markuu intaa fundamentalkii soo dhammaystiro ayuu u gudbayaa cyber security-ga baranaya ama sida wax loo difaaco ama sida weerarka loo qaado ama digital forensics waxa la yidhaahdo ama security operations waxaan filayaa in teamka terminology-gaan isticmaalaya haddii dadku wada IT yihiin terminology-yadan isticmaalayo inay fududaan doonto haddii ay adkaatana terminology-ga waad google garayn kartaa intaas aanan ku jirno live-ka ama after the live marka iyo certificate la diyaariyana way jiraan kuwaasna de gadaalba kolle ka hadli doonaa fundamentalka horta loo baahan yahay okay so ma jiraan muxuu ahaayey muxuu ahaa courses horta meel halkii kaba soo qaad degree-ga
waynu aragnay waxaynu nidhi iminka digreegii waa la qaadan karaayo qofku degree buu maaragtay ku bilaabi karaa haddii uu jaamacad helo degree cyber security bixisa ka waran qofku outside of the degree isagoon qofku degree qaadanin expert ma ku noqon karayaa hadduu expert ku noqonayana halkeebuu ka bilaabi karaa daqiiqadeebaa mu mari karaya okay isaga digriga haddii aan ku base gareyno areadan regionkan Soomaalida digrigu noo soo qaatay computer science ama ICT ama IT wax ka soo qaatay wuxuu ku kaabi karaa external resource marka inta badan security ama IT gu wuxuu leeyahay courses specific u ah fiilalka kala duwan IT-ga marka waxa kamid ah for example qofka haduu doonayo inuu pen test ka barto kale oo qayb kamid ah cyber security-ga oo qaybta weerarka la qaadayo kala ethical weerarka la qaadayo la tijaabinayo systemkaasi inuu leeyahay daldaloolo laga soo geli karo courses ba uu helayo qofku la xiriira areadaas oo kale ama haduu doonayo general cyber security inuu barto kale certificate loo yaqaano CompTIA Security Plus oo vendor neutral ah ayuu qofku diyaarin karaa isagoo degree-giisii haysta ayuu ku darayaa specialized certificate kaasi kolkaas ay ka qayb qaadanaysaa inuu dhismo oo qofkaasi cyber security xoogaa junior into intermediate weli aanu expert niman gaadhin marka expert nimadeeda oo ay adag tahay in laga warrami karo marka junior to intermediate waa gaari karaa resource available ka imka la isticmaalo ugu wanaagsan horta waa YouTube-ka qofku hadduu YouTube-ka uu galo waxa laga yaabaa inaanu helin mid taxana laakiin subject walba loo baahan yahay ama mowduuc walba loo baahan yahay inuu qofku helo YouTube-ka inuu ka raadin karo dabeetana ka daawan karo courses waxa jira ayaguna Coursera qaar ay bixisaa laga helaya Coursera haddii aad tagtid IT Google cyber security certificate ama back la baranaya jira ma garanay marka Coursera kolley inay charge gareynayso suuragal weeye cyber ba ayaguna jira oo intooda badan cyber security focus ka saara courseskoodana qaar free laga helayo iyo qaar lacag xogaa yar la qaadayo charge gareynaya jira marka kuwaas resource-ka ugu badan qofku ku bilaabi karo noqon karta inuu Google gareeyo meelaha ka raadsado ama YouTube-ka uu ka daawado videoiskaas so haddaynu markaa garanay qofku hadduu iminka degree ku diyaariyo IT qofku oo degreediisu IT ay tahay oo maaragtay information technology uu ka baxo masterskiisa ma qaadan karaya cyber security absolutely waa qaadan karaa of course waa qaadan karaa hadduu background-kiisu IT yahay oo khasab waxa weeyaan cid u diidaysa inuu cyber security master ka diyaariyo ama PhD ka diyaariyo ma jirto wax u diidaya marka waa sidaan sameeyay degree wuxuu ahaa information and communication technology ICT masterteeduna cyber security marka waa suuragal iyo available ay tahay uu jaamacadda uu ka helayo waa wanaagsan tahay inuu diyaariyo qof mood bad saaranta Cabdiraxmaano yaaron mood codkayga marka mute-ka ka baxo mute-ka markan ka baxo wuxuu sameynayaa echo buu sameynayaa baan filaya adigu hadlayso yes way marka uu qofku haddii uu maaragtay degree uu haysto IT ah micnaheedu waxa weeyaan cyber security uu diyaarin karayaa asin masters uu diyaarin karayaa inuu maaragtay basicskii wixii wadadeedii uu qaadi karayaa waa possible way that's very good way haddaba muxuu ahaayey imikoo kale su-aasha kalen haya waxa weeyaan qofka imikoo kale muxuu ahaa ka baxay horta intaan intaa u gelin ma jiraan channello dadka from scratch uga bilaabo oo YouTube ama resources free iyo meel ay dadku ka heli karayaan oo cyber security muxuu ahaa ilaa eber ay ka bilaabayaan ilaa maaragtay meel fiican ay ka gaarsiin karaan inta ka war hayo waxaa jira nin loo yaqaano Professor Masar haddaad YouTube-ka ku qortaan Professor Masar waa MESSER Professor naad garanaysaan sida loo yeedhiyo CompTIA Security Plus waxaa jira playlist dhammaystiran
oo uu ku saleeyay imtixaanka CompTIA Security Pluskii ugu dambeeyay SY 700 marka waana free hadda waa la daawan karaa waa muuqaal qolooyinka ka hela qoraalada in wax akhriyaanna waxaa jira I think I can share 2 platforms mid waa TryHackMe iyo mararka qaarkood subscription bishii $14 waxaas u baahan coursesna ay ku jiraan qaar balaasha qaarkoodna lacag yihiin oo markaa bilaa isaga lacagta la bixiya $14 weeye iyo Hack the Box oo ayagu laftarkoodu ay diyaariyeen wax la xiriidha defense-ka iyo attack laftarkooda marka kuwaas waxay laakiin u badan yihiin waa qoraalo ad akhriyaysaa exercise-kaad ka shaqaynaysaa dabeetana markaasaad level up ku samaynaysaa skillkaagii cyber security-ga videoska Professor Master qofka bilaaba CompTIA Security Plus soo qaata waxay u tahay security-ga foundation wanaagsan kolkaas qofku wuxuu sii xiiseenaya u leexan karaa hadduu pentest yahay hadduu blue team-ka yahay defense-ka yahay hadduu yahay forensics-ka hadduu yahay GRC even oo wax technical-aba la xiriirin bolisiyada iyo standardada in la check garayo in systemadaas ay leeyihiin kale halkaas qofku markaas uu samayn karaa branch cyber security oo fast field way u ballaaran yahay laakiin bilowga CompTIA Security Plus markuu soo qaato dabeetana uu leexan karaa marka YouTube-ka aad ka heli kartaan Professor Master Professor Master dadka u baahan waa la wada qoraya waa tan halkan comment-ka lagu soo wada qoraya Axmed Jaamac inaan kaan arkayo comments-ka walaal magaca ka eego YouTube channel-ka Axmedow aad baad mahadsan tahay mar kale su'aal baan hoos gelinaya halkaas oo ah imika dhalinyarada markay jaamacadaha ku jiraan amaba jaamacadda intaanay gelinaya ay ka baxaan muxuu ahaayay secondary-ga markay ka baxaan badankoodu waa confused so computer iyo maaragtay way ku dawaqaan oo computerka dadka badankoodu waxay u haystaan marka hore inuu yahay wax meel kaliya inta laga galo meel kaliya laga baxo oo topic kaliya laakiin sidaynu ognahay de waa bad computerka iyo science-kiisu ma garanaysaa marka dhalinyarada muxuu ahaayay ku yara dawaqsan ee doonaysa in ay cyber security barato maxaad ku dhiirigelin lahayd waa talabaade mustaqbalka uu leeyahay cyber security in the near future bal isagana ka waran marka waxa weeyaan waa qof secondary ka baxo jaamacad aan gelin tanan qaldaneen yes amaba qof hadduu doono amaba qof degree kala qaatay oo doonaya in isaga laftiisa IT barto yes IT qofka secondary-ga dhameeyay ee doonaya inuu cyber security-ga uu barto sidan hore soo sheegay horta fundamental-ka waa inuu xooga saaraa fundamental-ka waxaad sawirataan idinka guri dhisayo kale guri waxaad doonaysaan dhowr dabaq aad dhistaan seeskaagu haddii aanu adkayn dhowrkan dabaq iskama xejin karo marka seeska waxa uu noqonaya cyber security qofku waa inuu networking code u yaqaana basic of networking uma baahnin CCNA CCNP CCIE inuu ka gaadho shahaadooyinka sarsare siiska bixiso fundamentalka TCP/IP oo protocol stack-kaas sida transport layer-ka application layer-ka kuwaas oo kale uu yaqaano oo si wacan u fahansan yahay iyo inuu yaqaano systemsku sida u shaqeeyaan whether it's Windows or Linux waa inuu xariif ku yahay Windows isticmaalkiisa client-ka markuu yahay iyo markuu server-ka yahayba aanu qofku yaqaana way hadhow kuwaas la doonaya in la ilaaliyo iyo development-iga waan wax ka yaqaana development-igaasi waa in wax ka yaqaana at least hadduu scripting language-ka yaqaano hadhow uu shaqadiisa automation ku samayn karo iyo webku siduu u shaqeynayo laftarkiisa waa inuu wax ka garanaya intaa markaa fundamentalka ayaa lagu baranaya fundamentalkaasi qofku markuu soo dhiso secondary ka baxay fundamentalkiisa soo dhiso kadib CompTIA Security Plus buu bilaabi karaa isagana waxba degree iyo master aanu raadin CompTIA Security Plus waxba imtixaankeeda yaanu gelin imtixaankeedu waa 400
$2 baan malaynayo inuu ahaa certificate-ka jeebkiisa ka buskeedka levelkaasi way kala duwan yihiinoo qofku dee kolba waxa uu xiiseynayo oo dadku isku wax ma xiiseynayaane filalka kala duwan ee cyber security-ga ka mid ah inuu branch uu ku sameeyo kala leexleexdo hadduu red team doonayo blue team hadduu doonayo uu SOC analyst uu noqonayo mid computerada uu monitor gareeya hadduu doonayo network security-ga hadduu doonayo cloud security-ga markaasuu qofku leexleexan karaa laakiin fundamentalka waa inuu ka bartaa fundamentalka markuu barto committee security plus ku xigsiiya kadib qof walba iyo waxa uu xiiseynayo uu u gudbaa hadduu secondary ka baxay iyo hadduu jaamacad degree qaatayba Mustafa waa wanaagsan yihiin waa kaa noo soo qabay networking operating system Linux iyo Windows web development Java iyo Python very good waa kaa noo summarize gareeyay Mustafa markaas intaasaan kula talin lahaa Thank you very much. Haddaba waxa kaloo iyaduna badanka soo noqnoqota amaba dadku imika markay laga haysi meel markay imika la hadal hayo hawshan muxuu ahaayay cyber security-ga dadku waxay aad ugu celceliyaan certificationska. Okay? So what's the best certificationska ugu fiican ee qofku uu pursue gareyn karaya iyagu maxay yihiin oo bal dhowr kala duwan oo maaragtay iyagu wanaagsan bal nala wadaag insha Allah oo beginner imko kale qofku hadduu kaba soo qaad committee plus oo kale hadduu doono ka bilaabo halkeebuu muxuu ahaayay u dhaafi karayaa ama sideebuu socon karaa ama ma jiraan shahaadooyin kale iyaguna la mida committee oo vendors kala amaba cid kala bixiso oo iyaguna sidaas oo kale loo sii raaci karayo Okay, great. That's wanaagsan. Certification isku. Dood badan baa horta ka jirta inay muhiim yihiin iyo inaanay muhiim ayaan ahayn. Marka haddii loo baahdana waa muhiim bay noqonaysaa haddii aan laguba weydiinayna muhiim noqon mayso. Value sameeya certificate ka shirkadda kugu xidho ama shaqo lagugu xidho marka inaad haysataa important bay noqonaysaa. Marka aan cidba ku weydiinayn waa iska value added oo plus bay noqonaysaa haddii qofku bilaabayo cyber security-ga doonayo certificate uu ku tarsado oo CV-ga ku qurxiyo matalan for example oo shaqada markuu raadinayo short list ugu horeeya lagu soo saaro adduunka oo dhan waxa ugu horeeyay la isku raacay waa committee security plus sababtuna waxa weeyaan waa vendor neutral shirkad kuma xidhna oo maha mid Cisco ka leedahay oo Microsoft iska leedahay ama Amazon AWS kama tirsana waa vendor neutral oo qolada committee ayaa gacanta ku haya ana foundation-ka cyber security waxa meesha lagu barayo fundamentalki waxa meesha lagu barayo marka qofka hadduu taasoo kaliya as a beginner uu diyaariyo ayaan isleeyahay waa ku filan tahay kuwa kale waxa laga yaabaa inay area kaliya ta focus ka saarayaan matalan qoladan e-learning security oo kale INE shirkaddan la wareegtay waxay leeyihiin mid loo yaqaano EJBT waxa weeye if I write it down here EJBT waa junior penetration test focuska waxay saareen penetration test qaarkood cyber defense oo kale shahaadooyinka soo saarto oo kuwa difaaca lagu talagalo kale marka kuwaasi waxay saarayaan focus area subject matter bay focus ka saarayaan laakiin committee security plus waa general cyber security foundation way marka taasoo kaliya taa ku fulan as a beginner qof beginner oo dhowr shahaado soo diyaariyay ee laftarkeeda caalamad su'aal baa laga yaabaa qofka inay qofka employer-ka markuu la tago inay caalamad su'aal la saaraa baa laga yaabaa marka xabadaasoo kaliya taa ku ekaadaa fiican xabadda weeyo dee bilaash maaha $400 iyo $2 inay imka cagacaganayso $400 waa investment qofku ku sameeyay naftiisa marka lacag yar internetka Axmed ka yara baxayaan filayaa ilaa 3-4
certificate oo kala halayo alla si urursado te gaadho qofkana shaqaa plus it will be perfect hadra okay gadaal ka soo gaaray wuu yara codka marmar yara ha yara kala ha dhib male wuu yara codka marmar connection book oo soo dhigay waxaan xoogaa yara wado ha yeah so waayahay aad baad u mahadsan tahay marka wuxuu qofku samayn karaa committee iyadu waa general anigu waxaaban moodaya inay specifically meel gooniya awoodda saarto sida Cisco oo kale laakiin that's aniga lafteeda wax badan aragtay baranayaba way haddaba niyo waxaa jirta misconceptions waxyaaba waxaa jira iyaguna marka dusha laga taagan yahay mawaadiicdan dadka badankoodu ay maaragtay khalad fahansayin amaba ayna kala garanaynin waxyaabaha qaar ku kala duwan yihiin bal dadku badankoodu cyber security-ga waxay u maqlaan hacking bay maqlaan dadku so bal maxaynu odhan karnaa muxuu ahaayey hacking iyo cyber security maxay ku kala duwan yihiin okay hackingka intan dambe meediada ayaa si xun u isticmaashay oo adiga laftarkaaga go'taymka Cabdiraxmaan oo hacker baato nin wax develop garanaya tahay marka inta meediadan dambe ayaa si xun u isticmaasho dadka waxa la leeyahay qofkaasi waa hacker marka wuxuu wadaa waxyaalo unethical aan dhaqankeeda aan wanaagsaneyn oo loo fasaxin midlan illegal things buu wadaa marka actually hacker waa good way waa kelmad fiican weeye waa qof raadinaya shaygani siduu u shaqeynayay doonaya inuu wax ka bedelo marka root-kii baalkani siduu u shaqeynayay baan doonaya inaan barto hadhowna aan amri karo wax kale ka duwan inuu shaqeeyo marka de hacking-kuna marka waa qayb ka mid ah ethical hacking weli baan ka horreysiinoo dee saan struggle noo fuulina ethical hacking-ku waa qayb ka mid ah cyber security-ga red teaming ama penetration test oo loo yaqaana oo qof raadinaya systemkaasi doldololadu leeyahay si hadhow loo buuxiyo ama externally qof kale intaanu attack ugu soo qaadin meelaha weaknesska meelaha aad ka liidatid intaad soo ogaatid u sheegtid qoladii ama developerska ahaa ama blue teamka ahaa si u saxaan hadhow aan lagu jabsan marka hackingku waa caynkaas waa ethical hacker qofku misconception kaasan filaya inuu dadku ugu badan yahay cyber security-na waxaan inta ka soo hadlaynay yes so basically labaduba waxa weeyaan muxuu ahaayey waa wax dee wada shaqeeya laakiin midna waa topic kasii hoose oo ah qofku wax walba lagu apply garan karo oo wax walba qofku ha garan karo qofka xal keenayaba waa hacker basically ethical hacker yes so cyber security-na dee waa the whole science of in wax la ilaaliyo oo data digital ah la ilaaliyo oo server la ilaaliyo oo website la ilaaliyo ma garanaysaa sidaas loo ilaaliyo waayahay haddaba muxuu ahaa waxyaabaha kale runtii aadka u muhiimka ah intaasoo jeer maqlay waxa weeyaan qofku job opportunitieska regionka Soomaalida meel walba Soomaalida imka deegaankan geeska Afrika ay ka degto opportunitieska cyber security-ga ka waran intuu leeyahay okay intaan regionka ka warqabo horta cyber security-ga halkeenu mawduucaas waa yara xasaasi oo qofka markiiba laguma sii daayo cyber security-ga waxaa laga yaabaa xitaa shaqooyinka la soo xayeysiinayo inaan qofku aanu external aan loo xayeysiin oo qof matalan screen lagu soo sameeyo la soo baaray oo lagu kalsoon yahay in markaa processkii la mariyo marka phobia halkeeda laga qabaa waxaa laga yaabaa inaad arkin meel la yidhaahdo cyber security analyst baa loo baahan yahay shaqa saasan inaan lasoo advertise karayn intooda badani waxay ku soo galaan as an IT engineer ba qofka ku soo gelaya markuu IT engineer ku soo galo ayuu sameynaya branch u leexanaya qaybtii cyber security-ga sidaas aana lagu shaqo tagaa inta badan qofka markaa xariifka ee doonaya wadankii jooga inuu cyber security ku shaqeeyo targetka ha ku tarsado cyber security position inuu qabto
laakiin waa inuu idhaahdo waa inaan IT-gii markii hore aan dee soo dhigtay ama backgroundkayga IT-ga ahaayee fiicnaa aan ku shaqeeyo server manager noqo ama network admin noqo ama developer noqo shirkaddii horta madaxa sidaa ula soo gal markaad la soo gashid hadhow skillskaagii cyber security-geed haysatayna markaasaad leedahay okay cyber security-gana xariif baan ku ahay maadaama aan xariif ku ahay shaqooyinka cyber security-ga waan qaban karaaye ha lai wareejiyo cyber security saasaa fudud laakiin adoo bannaanka jooga inaad tirahay cyber security baan soo bartay shahaadooyinkaas 1 2 3 baan haystaayee shirkad x baan doonaya inuu shaqo tago diyaarmad shirkadda laftarkeeda baad wixeedii baad farsamaysaa marka trustkii baan degdeg lagu siinayn unless xagga hoose aad ka soo bilowdid marka waddankeenu sidaasuu u shaqeeyaa normally waa intaan ka warqabo laakiin waa opportunities jiro oo wax loo baahan yahay weeyaan oo maaragtay shirkad walbaaba u baahan tahay oo opportunities fiican oo maaragtay baahidii taalla meesha dhimaanka waa meelu yaalla soo maha yes demaanku halkeenoo kaliya xitaa ma yaalo fiilalka la wada qaban kara adduunku ka mid yahay waxaan arkayay researchadii waagaan wax dhigi jiray aan ardayda la wadaag jiray waxaa la lahaa in 2020 bay ahayd banfalay ama 2022 shaqooyinka cyber security-ga ee cid buuxisa la la'yahay globally waxay gaadhayaan 3.5 million waa 3.5 waa inta daba ku nool haddii ay istiraahdo cyber security wada barta ay ka fargarayn karaan weeye marka 3.5 million shaqo oo cid buuxisa la la'yahay that means gap baa jira halkaa oo dadkii skilledka ahaa meesha ma joogaan marka qofku inuu imka bartaa oo imka bilaabaa dee fursad wanaagsan bay u tahay numberkaasna mar walba uu kordhaya waxaa kordhinaya dee waxyaalahan internetka lagu wada xidhay IoT baa beri soo baxay internet of things saacadaha internetka lagu xidhayo mobilka baa internetka ku xidhan tviyadii baa internetka ku xidhan laptopyadii hore waan isticmaalanay talaagadihii baa internetka lagu xidhaya qasaaladihii baa internetka lagu xidhaya internet of things intay dhaaftay bay gaadhay internet of everything in internetka lagu xidho oo mobilkaa laga maamulo waxaasi marka waxay furayaan albaabo khatarteeda leedahay ka waran gurigaa dhan haddaad mobilka ka maamulaysay oo mobilkaa gacanta lagu dhigo that means gurigii baa gacanta lagu dhigay gurigaagii gabigiisa smartka ahaa aad geli kari weydid ka waran oo waxba aad ka qabsan kari weydid albaabkaba lagaa loo gareeyo marka mar walba waxa internetka ku xirmaya uu bato security-gana uu barbar socdaa marka security-gu demandkiisu marnaba yaraan maayo unless dee uu adduunka ka baabao wax computer la idhaahdo wax operating system ku shaqaynaya uu ka baabao mooyaane suuqiisu waa in high demand waddankeenana sida loo farsameynayana waa aniga hadii sheego waxaad ku gelaysaan IT dabeetana IT markaad ku gashid you can branch oo u leexo security ama network security haato ama cloud security haato marka baahidu way taagantay okay waxaa jira muxuu ahaayey imika labadii sano u dambeysayba waxaa aad iyo aad maaragtay usoo batay AI toolskii amaba artificial intelligence-kii in maaragtay meel walba uu galay oo dadkii IT-ga maaragtay ku shaqaynayay oo dhan dad badan maaragtay la cabsi geliyo la yidhi shaqooyinkiina waxa bedelaya AI imika annagu software developers haddaanu nahay waxaa jirtay tool maalmo dhaweed ay soo saareen oo la yidhahdo Devon AI oo basically markii dambe iska noqday inuu hoax ahaayo waxba aanay ka jirin oo la yidhi adugu waa la fake gareeyey xataa damihii la sameeyey laakiin still haddana shaqooyinkii muxuu ahaaye in saamayn ay jirto oo AI-gu wax ka saameynayo oo waxyaabo badan la automate garayn karayo ayaa dhacday waaye haddaba cyber security-ga saamayn intee leeg buu AI-gu ku yeeshay AI artificial intelligence-ku dadkiiba horta sidaad sheegto waa ka cabsi geliyey actually inuu qofka cabsi geliya maaha waa tool aad isticmaalaysid ku caawinaya adiga AI kama maarmo bani aadam raran gareeya intuitionkii bani aadamka bahalkani ma leh oo imka haddii aad kuwaan ChatGPT ama kan Google aad wax u tiraahdo wuxuu qoran inagu waxyaalaha garan maayo waxyaalaha security-ga la xidhiidha inuu ku caawiyo for automation inuu robot kuu soo saaro inuu anomaly detection ku sameeyo yes
laakiin anomaly detectionkii markuu kuu sameeyo hadhow iyo maamulkii la warramaya ee reportkii ka diyaarinaya ee presentationkii sameynaya oo qofkii securityga yaqaanay AI-gu kama jawaabi karo su-aalahaas oo kale marka AI inuu noqdo tool adigu aad istishay aad doonaysay aad ku qabanaysay waqti fara badan inuu waqtigii kuu soo koodo accuracygiisu fiicnaado mooyaane inuu totally kaa qaado shaqadii lama aha aniga aragtidayda inuu AI intaas u dhan gaarsiisan yahay marka waa cabsi iska jirto phobia ka wada qabaa iminka annaga waxaa la soo saaray shirkad muxuuha cognition AI la yidhaahba baalba dhexdii ahayda wax la yidhaahdo defen AI ayay ka sameeyeen demo markuu intaa ka sameeyey waxay sameeyeen demo bay sameeyeen isagoo project dhisaya oo maaragtay test garaynaya oo bugskii ama ciladihii kasoo horbaxay fix garaynaya then adduunkii oo dhan baa qiimiyey shaqooyinkiini buu la wada the first AI software engineer bay xataa u bixiyeen then wax yar ka bacdi waxa soo baxdayba in la muxuu ahaaye la fake gareeyey oo demihii uu ahaa demo fake oo de maaragtay possibilitieska nin waxaa jira la yidhahdo internet of bugs oo youtuber ah oo software developer aduu nin khabiira ninkaasa wuxuu ka sameeyey video like uu kaga hadlayay 25 minutes uu sii kala qaadqaadayo possibilitieska amaba sida muxuu ahaaye uu fake u yahay waxaan loo yaqaano defen AI iyo siday been u ahayd ama fake u ahayd demahan ay sameeyeen iyo waxyaabahan oo dhan sidayna possible u ahayn so it seems like sumcaddiisii isagoo AI-gii tool wanaagsan oo waxyaabo badan automate gareeyey haddana imika durba dadkii waxay bilaabeen inay shaki galo oo dhowr shay baa maaragtay imika Amazon waxaa jirtay wax la yidhahdo just walk out oo muxuu ahaayey ahaa supermarketyada iyo waxyaabaha ay ugu tala galeen oo ay odhan jireen waxaad ayarun baad alaabta qaadanaysaa waad iska baxaysaa adigoo aan maaragtay checkoutka iyo marin cashier-ka iyo dee ma garanaysaa then waxa dhacdayba marka waxay lahayn AI baa shaqadaa qabanaya then waxa la ogaaday inaanay sheekada AI ba qabanaynin basically ay dad hindiya ay ka daawanayeen muxuu ahaayey camera CCTV camera ay ka daawanayeen count garaynayeen qof walba wuxuu qaadanayo tii baa soo baxday marka so people were saying dad waxay lahaayeen halkii ay ka ahayd AI ee loo soo gaabiyey artificial intelligence waxa loo soo gaabiyey Amazon AI-gu wuxuu ahaa actual Indians so it was really funny so shirkado badan baa imika si ay fancy u yaran noqoto productiskooda ama waxyaabaha ay qabanayaan ku dara wax walba AI muxuu ahaa ayaa rangaraynaya this whole thing so chips bay odhanayaan muxuu ahaaye powered by AI ama waxyaaba noocaasa marka yes AI is a tool taasaan aniga lafteydu aaminsanahay that's very good way haddaba waa tool in toolkaad isticmaashid inaad baratid isticmaalkiisa oo adiga aad tiraahid iga faa'iido ii soo kordhinaya ayuu qofka fiican inuu ka fikro laakiin as a threat haddaad tiraahid waxa weeyaan kan khatar baa ugu yahayba difaac badgeli laakiin baro sidaad u isticmaal lahayd shaqadaada u fudaydin lahaa Oh yeah. So there's this guy. I remember Hamoud inan kaasa sheegay this kan Nvidia shirkadan la iskale samaysa GPU-ga ayaa muxuu ahaa maaluud buu yiri muxuu ahaa waa obsolete bay noqonayaan software developers kuma garanaysa so he can sell more GPUs because AI iyo the cid walba oo AI system la xiriira samaynaysa more GPUs more processing waxaas u baahan tahay ma garanaysa so si uu salgareeyo ama uu iibiyo more GPUs ayuu maalin dhaweyd yiri AI will be software development will be ama programmers will be obsolete oo wax loo baahan yahay noqon maayaan imika it's crazy lacagtooda sanaday maraysaa yeah definitely it's aad iyo aad waayahay waxa kaloo doonaya ku weydiiye Axmedow aad baad umahadsan tahay shaqo imika qofku isagoo wadanka jooga imika haddii uu certificate diyaariyo ama cyber security uu ka takhasuso shaqooyinka opportunitieska remote-ka ah inuu helaa possibilitieskeeda ka waran macquul ma tahay ama sidee baana loo raadiyaa ama isagoo qofku wadanka jooga macquul ma tahay inuu maaragtay
cyber security job online ah ama remote ah uu helo. Okay, waa si wanaagsan. Taas waxaan filayaa dhowr shay bay u baahan tahay, dhowr factor baa xakameyn kara qofka helitaanka shaqada remote-ka. qofku isagoo skillkii IT-ga leh ama cyber security skillkii leh, xirfadii leh, waa in ay ku jirtaa toolskiisa ama arsenalkiisa communication skillskii ama waxaa loo yaqaano soft skillskii. oo shaqooyinka la soo xayeysiinayo inta badan dadka soo xayeysiinaya common language baa lagu wada hadlaya. waxaa laga yaabaa in uu noqdo English in lagu wada hadlo. English haddii lagu wada hadlayo waa inuu markaa qofku yaqaanaa ku hadalkeedii, fahankeedii, jawaab celintii ama email diristii ama akhrintii. kolkaasuu qofku dee kor u qaadi karta tartanka. waxa weeyaan shaqada remote markay tahay dad fara badan baa u tartamaya, weliba indiyaan u badan. marka ninka hindigaa sida isaga celisid, haddii isku mid aad ka tihiin xirfadii cyber security-ga, waa inaad xirfado kale aad dheer tahay ama kharashka ahaan aad ka yaraatid kharashka. matalan Upwork oo kale markii shaqooyinka la soo xayeysiiyo, I remember when I was in Turkey in shaqo firewall configuration lagu sameynayo, network security. marka firewall configuration lagu sameynayo Cisco firewall, qof Australia jooga aan u qabtay. Chinese-ka waxaan ku helay 1 hourskii aan dalbaday saacadda intaan ku shaqeynayay waan yaraa, waan wax yar baan doortay. oo dee nimanka Hindiyadu 50 saacadood iyo $50 per hour iyo $100 iyo $150 iyo xaase qoranaya. marka waa nimanka sarsare. adna meesha waad ku cusub tahay, marka waa inaad price-kaaga hoos u dhigtaa si shaqadan aad u heshid, dabeetana ay xoogaa profile-kaagu yaro wacnaado. marka ninka Australia jooga firewall configuration ku sameynayay, it was remote configuration-kii halkan computer-ka diyaarsaday JNS3 anigoo isticmaalaya. configuration-kii markaan dhamaystiray aan taskareeyay baan la diray, markaasuu lacagtii kusoo shubay. marka waa shaqooyinka freelance-ka ee lagu shaqeynayo googooska. laakiin remotely uu ku shaqeynayo matalan shirkad California ama UK, uu basekiisu halkan ahaanayo, isagoo Africa jooga, waa suuragal inuu helo haddii competence uu la yimaado, karti hadduu la yimaado, xirfadii isagoo garanaya uu kartideediina leeyahay, uu qofku si wacan isku iibin karo. marka meel walba qofku waa u shaqeyn karaa. waa inuu laakiin markaad xareysatid CV-gaagi outstanding uu noqdo, aad ka duwanatid dadka kale, ama experience-kaaga ku caddee, ama profile sameyso. waxaad tiraahdaa GitHub-kayga waa kaasoo intaasoo projects baan sameeyey, ama YouTube channel sameyso. waxaad tiraahdaa intaasoo project baan ka shaqeeyey. waa inuu qofku is iibin karaa. markaad siibisid baa actual xirfadaadii loo imanaya cyber security marka hore, laakiin waa inaad qofkii ku qancisa. marka taasaa xakameynaysaa remote jobska in la helo ama freelance lagu shaqeeyo. keliya tamaa cyber security ma garanay, intaas certificate baan hayaa, waa inaan shaqo helaa. waxyaalo badan baa loo baahan yahay. English waa tool weeye. Yeah, that's some good points. muxuu ahaa waxa weeyaan waxaan idhahdaa iminka markaad shaqooyinka ka raadinayso, mar in badan baa lay weydiiyey sidee shaqo remote job loo heli karayaa software development oo kale. runtii the same answers iminka su'aalaha aad jawaabaha aad bixisay kalaan bixiya. waxa weeyaan competition baa adduunka ka jira, ma garanaysaa? competition ka jira waxa weeyaan maanta haddaad Indeed ama Upwork timaado, qof Hindiya ama Asian abaa kula tartamaya. wuxuuna kugula tartamaya waxa weeyaan ama lacagtuu kaaga jabaya, ama uu kaa khibrad badan yahay, ama waqtigu shaqeynaya kaa duwan. marka waa inaad waxaasoo dhan adiguna la dhigi karto, la buuxin karto, oo dadaalkeedii waxeedii la timaado opportunitieskana waad helaysaa. inan baa ku celcelinaysa civil engineering ka hadla. walaal civil engineering ma garanayno, cyber security weeyaan taabigu. anuna IT baanu nahay, marka civil engineering de waxaanu ka hadli karna maaha. waad naga raali ahaani. waay Axmed, aad baad mahadsan tahay. ma jiraan haddaba muxuu ahaa su'aaluhu, I think su'aalihii intii muhiimka ahayd waynu soo kafargaraynay. talow ma jiraan cid dad Soomaali ah oo dhiga muxuu ahaayey dhiga cyber security-ga oo meelun resourceskooda online laga heli karayo, ma jiraan? As far as I know,
way jiraan oo dhowr platform oo online u badan ayaa jira marka loo yaqaano Tixi Technology, tixi.com. Let me write it down. Ama qof hadduu noo soo qoro waxaa jira team UK jooga Hurbet baan ayaguna laftarkooda LinkedIn-kan ku arkay marka courseeskooda way ku jiraan cyber security committee waxaa jira ayaguna Last Tech nin jooga isku turki ahayn oo laascanood jooga Last Tech Academy aan filayaan Facebook aad ka heli kartaan isna wuu dhigaa cyber security-ga marka saddexdaa meelood baa iminka madaxayga kusoo dhacay oo Soomaali dhigaysa oo af Soomaaligii ku sharaxaysa cyber security inta kale Allahumma salli ala Muhammad inta kale English bay u badan yihiin oo de platformyadii hore aan kasoo sheekeynay English bay u badan yihiin laakiin intaan ka warhayo Soomaali waa Hurbet waa Tixi iyo Last Tech iyo cilmi academy da albaabadiisa imika xidhmeen oo aan shaqayn That's very good. Muxuu ahaa Mayraj aad bay runtii u fiican tahay and I think maaragtay basicskii oo dhan I think waynu ka fargaraynay wixii maaragtay qofku wadada u mari karaya ama waxyaabaha uu samayn karayo way haddaba waxaan doonayaa bal niyow waxaa jira dadka badankoodu aniga laftaydu marmarka qaar ba waxaan arkaa maadaama de imika telefoon la wada isticmaalo ama computer la wada isticmaalo waxaa jira in dadku awareness ba loo baahan awareness la sameeyo dadku isticmaalka sida uu saifsanaya u isticmaali karayaan telefoonadooda iyo maaragtay computeradooda iyagoon wax dhibaatooyin soo gaadhin ma jiraan waxyaabaha bal dadka awareness ka siinayso oo mar walba maskaxdaada kusoo dhaca maadaama cyber security engineer tahay aad odhan karto waa niyow waxyaabaha qof walba oo daily u isticmaala telefoon ama u isticmaala mobile ama computero waxyaabaha ha samaynin waxyaabaha aad odhan kartaa bal tolo ma jiraan mobile iyo computer ilaalintooda ama qofku online-kan uu ku jiro ilaalinayo waxaan odhan lahaa haddii laptop yahay ama mobile yahay operating system buu ku shaqeeya mobilkana waxa ugu badan la isticmaalo waa Android iyo iOS xaaladaasi mar walba update ku soo dhaco horta update gareeya computer haddaad isticmaalaysid Windows yahay ama Linux yahay ama Mac OS yahay isagana dadaala inaad garanayn oo email lagu soo diray oo kale matalan qofku waa inuu iska ilaaliya linkiyada la iska furto waa inaad qofku iska ilaaliyo ka imanaya ama talo macda ka waramayo okay ma internetkana wuxuu sheegayaa there is a poor in connection okay ma hay mise waa echo baa jira weli talo si wacan miyaa la ii maqlaya okay all right marka qofku inuu kow mobilkiisa up to date ka dhigo laptopkiisa computerka up to date ka dhigo software walba uu isticmaalayo source-ka saxda uu ka soo dejiyo hadduu computer ku shubayo مثلا جوجل كروم بدونيسا جوجل كروم انت software third party كسو دجين لهيد ده جوجل كسو دجسو موبيلada inta badan app store iyo google store kaas laga soo dejiyo storeadooda saxda ka soo deji emailka noqotay meelaha ugu badan ee xasaasiga ah qofka haduu email leeyahay emailkaas waa meelaha la iska soo galo phishing emails baa jira oo lagu dagayo marka linki aanad garanay cid ku soo dirtay ha ku dhufanin attachment aanad garanay soo download gareyn oo emailka lagaga soo diray sida kale general online presence-kaagu waa inuu fiican yahay qof si edeb leh internetka u dhex joogo dadkana aan caayino waa muhiim akhlaaqdaaduna halkaan waa ka wanaagsanaata waayo meelaha ugu badan ee qofka laga jeegareeyo
weeyaan imka CV-gaaga online-ka waxa weeyaan in qofka Facebook-kiisa galo ama Twitter-kiisa galo X ama Instagram-kaaga la galo meelaha haddii dee aad tahay qof halkana dadka ka caayaya oo dabeetana halkana le waxaan doonayaa shaqo taasna waa lagu soo qabanayaa marka online presence-kaagu waa inuu qof dee dadkuna ka nabad galeen هذا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام بنقول لنا ما خير كهذا لما سك آمس وياه أنا خير كهذا لأن دبتك ديسيد وحيالها سوا وحيالها بس كإلى عليك رو جنرال أيام فيليا في البداية أنت مسك حد إذا كسر على وأنت That's very good actually. هل قف بقى هل كنت شروك السوق على نتورك انجينيرين سؤالها شيء تقول على نتورك انجينيرين ها الطابق هو off topic وحياة بدن اسكا ignore انت كوكا صار عادي نتورك سكيورتي فيعان نتورك إذا سيدا لسكول حرية ويجي marka qaybta security-ga focus saarayna network security oo kale masku xirxidhay kadib ilaalintiisii sida firewall inaad isticmaashay yes Linux waa la isticmaali karaa okay bug bounty ban maqlay bug bounty no soo noqotay yes change star baa soo celinay bug bounties kaasi waxa weeye inta badan mute yar galay darhano ka kooban maqlay okay bug bounty waxa weeyaan waa meel intaad fadhiisatid computerkaaga la soo baxdid websites lagu sheegay aad raadinaysid ciladaad ka raadinaysid waxay intaabkaana dhaafin scope-ka dabeetana markaad heshid bugskaasi ciladaha aad soo saartid bounty lagu siinayo lacag lagu siinayo marka qofku wuxuu noqon karaa waa researcher oo kale website baa lagu leeyahay website-kaas tesla oo kale tesla.com ayaa lagu raadi wixii cilada aad ka heshid marka wanaad xariif tahood ciladihii taqaana website-ka laga helayay kana horeysa website-ka horta siduu shaqeynaya aad fahansan tahay kolkaas aad cilad heli kartaa aad leedahay okay website-kaasi haddii sidaa loo isticmaalo intaasoo error soo saara marka bug bounty-gu waa filalkaas oo kale qofku intuu saacado dul fadhiyo website raadinayo website keliya ama website buu raadinayo isbuucaas labada isbuuc kadib wuxuu ka soo saaraya bugskaasuu report karaynaya report wanaagsan ka soo saaraya siduu u helay bugga laftarkeedu ka warramaya oo reportkaasi ku jiraysa kadib qiimihii lagu heshiiyey kumanaan kun lagu siin karaa ama $100 lagu siin karaa ama qaarkood iska yihiin vulnerability disclosure VDP wax lagu oranayo dabeetana aan lacag lagu bixinaynin laakiin dee CV-gaaga kor u qaadaysa muhiimkuna waxa weeye intaasoo bugs baan helay inaad recordka kugu jirto si hadhow tixgelin badan aad heshid website-adu waxay ahaayeen hurbad iyo tixi iyo last ma waa last word LAAS last okay miyaan ka hadalnay practical experience-ka qofku samayn karo beginner-ka talow Cabdiraxmaanow may inoogu dar kamaynaan hadleen okay taasi okay taana ku yara daro intaanan ilaawin idinku dee qoladayna isku applicationada sameysaan matalan open source oo kale dee GitHub-kaad dhex dhigaysaan ama website bad sameynaysaan website-kaagii baad halkan about waad ku qoraysaa inaad shirkadii tahay ama copyright-ki iyo dabeetana halkaasaa la fahmaya shirkadaasi inay waxaa sameysay qoladeena cyber security-gu meelahan isku xayeysiin karno aan practically khibradda ka heli karno wanagoo sameyna home labab okay labkaasi de waqtigii hore waxaan xasuustaa inkay oran doonaan da'diisu ninkan waa gaboobe 2001 or 2002 home lab ramkiis lab maxaad uga jeedaa inoo sharax iyadan ay ramkan computerka waqtigaan isticmaalayay 256 MB buu ahaa waa 256 MB يعني GB هل GB ربعي هذا كمبيوتر هذا ضمن بس 8 GB أو 16 GB يحبه كتير مركا لابكا waxaan ka wadaa waxa weeyaan waa environment computer kaaga kamida ama virtual machine ahaado ama mid cloud ka ahaado aad ku tijaabinaysid toolskii aad baratay security-ga ku jiray
marna waxbaad ilaalinaysaa sidii wax loo ilaalinayo firewall baad setup ku samaynaysaa networkii baad leedahay banaanka laga soo weeraraya bal difaacaygan eegaya marna waxaad tijaabinaysaa weerarkaaga oo xirfadii weerarkaad baratay baad ku tijaabinaysaa kuwaasi laabiska la sameynayo home laabiska la sameynayo waa safe environment intaad qof kale ku tijaabin lahayd systemkiisii ama websitekiisii aad odhan lahayd waxa weeyaan adigoo website samaysta log IP-ga ku gelisid 127.0.0.1kii ku geliya loo kale dabeetana ku tijaabisid tooliska marka laabiskaasi waa very important qaarkoodna waxaa jira capture the flag loo yaqaano CTF waxaan filaya inaad maqasheen CTF waa competitiono qaarkood lacag yihiin lagu siinayo hadaad kaalmaha sare gashid qaarna ay free yihiin marka CTF waa system baa lagu keenaya waxa lagu leeyahay tijaabi kasoo saar daldalooladu leeyahay vulnerabilities ku leeyahay weakness ku leeyahay systemkaas uu leeyahay dabeetana dhibca loogu samaynayo marka profilekaaga iminka haddii try hack me la galo kale iminka try hack me gashaan oo regionka Soomaaliya doorataan waxaad arkaysaan inta qof top 50 kan fale konton ugu sarreeya ardaydii kamid ahaa wardi la yiraahdo khayr Allah siiye ayaa on the top ku jira ardaydii jaamacadda FFU aan ugu dhigi jiray capture the flag as qofku ka qabata marka de CV-giisa eegay wardiyo kale de try hack me iyo hack the box ban profile-kiisa eegay le ninkaas okay adduunka ranking-kiisa intaas uga jira region-keena ranking-kiisa intaas uga jira markaas qofkaasi waxaa leeyahay competence-kiisa wuu fiican yahay qofkaasi waa qof de waqti badan geliyay practical-kiisa noo dhisan yahay wixii kale de la dhisi karo soft skills-kii kalena loo kaabi karo marka practical labisku waa waxyaalaha qofku isku iibin karo experience-na ka heli karo qofna ku ogolaan maayo firewall-kiisa inaad wax ku tijaabisid qofna ku ogolaan labka lab iminka marka leedahay is it like a computer aad dhiganaysa meel baa mise waa meel server aad online ka kiraysanayso labada axmed ma maqlaysaa option ba waan samayn karnaa laakiin waxa fudud inuu computerkiisaas aanu dhaafin kasoo qaad qofka computerkiisu yahay 8 GB waa ku maqlaya okay waxaan filayaa ma banaanka nooga baxayo si aan internet wanaagsan u helo joogi mar buu naga yara habsaamaya mooyaane sida kale waa caadi one second hadda ka warama bismillah imika miyaa la maqlayaa taw cabdiraxmaan iyo tiibka dhegeysanayba si fiican orable perfect laabiskan ku soo noqdo laabiska haddaan xooga saarno computerka qofka ka soo qaada hadduu yahay RAM-kiisu 8 GB for example wuxuu isticmaali karaa software loo yaqaano virtual box oo lacag la'aan ah virtual box ama VMware player hadduu license iska bixin karna VMware workstation hadduu Windows Linux joogo haddii Mac uu joogana VMware Fusion buu isticmaali karaa virtual box ma garanaya M1 iyo M2 inuu ku shaqeeyo markuu softwarekaasi soo dejiyo softwarekaasi wuxuu u saamaxayaa inuu operating system uu ku shubi karo oo virtual oo khiyaali oon dhab ahayn Linux buu soo dejin karaa Windows buu soo dejin karaa firewall buu soo dejin karaa oo pfSense oo kale oo matalan oo virtual ah kadib buu samayn karaa scenario
وديسي كرا مثلا نتورك وكلا نتورك وحو ekaysiin ya shirkad networkeeda kale computer ka kooban server ka kooban firewall ka kooban kadib ilaalinteedii buu sameynaya markuu setup ka sameeyo uu ilaalin karo isagoo laftarkiisa weerarka ku tijaabin karo uu eegi karo systemkan difaaciisa waasa loo yaqaanaa labis marka home lab inuu isticmaalo Amazon ama Azure ama Google Cloud waa suuragal free tierka hadduu isticmaalo lacag la'aanta laakiin kuwaasi waxaa laga yaabaa inuu sida marka hore setupka loo sameynayo cloudka xoogaa qofka ku yara adkaado laakiin waxuu baran kara weeye laakiin kow stepka koowaad waa inuu ama virtual box ama VMware computer ku shuba kadib operating systemyadii kala duwanaa iyo systemkii uu sameeyo dabeetana uu tijaabiya hadduu intaa wax duubayana kasii wanaagsan oo recording sameeyo screen recording oo OBS iyo softwarada la isticmaalaa kamid ah dabeetana uu isagu sharaxayo xitaa waxaanu doonayo inuu sameeyo labkan si hadhow dee u noqoto xaysiis uu yidhaahdo waxaan saasan u sameynayay casharkaasan duubay ama labkaasan sameeyey qofka hadhow markaad tustid intaasoo tiraahdo labkaasan sameeyey noocaas wax loo ilaaliyaa proofkina waa kaa waxay noqonaysaa qofkaasi valuegiisa kor bay u qaadaysaa dadna waan la tartamaynay marka waxaan doonaynaa in dee waxaan ay noqoto inaad dadka ka horeysaan Linux, Windows, Metasploit 2 and 3, that's good. That's a good start. Yes, marka qofku inuu muxuu ahaayay qofku in uu wuxuu samaysan karaa computerkiisu virtual machine ka dhex samaysan karaa testiska iyo waxa uu doonayo oo dhan halkaas ku samayn karaya. Yes, absolutely. Haddii kaloo computer uu haysto muxuu ahaayay free computer kaloo maaragtay aanu dee wax walba uu isticmaalin hadduu haysto oo isaguna madax bannaana kaasuu isaga laftiisa isticmaali karaya. So yes. Kaanu isticmaali karaa guidelines-ka ama guideska tilmaamaha waxaa laga heli karaa YouTube-ka home lab setup haddaad ku qortaan waxaa laga yaabaa intaasoo video soo baxdo dabeetana intaad videoda daawatid aad tiraahid anaa okay sameynay ku apply garaynaya environment-igan isticmaalayo computerkayga ku isticmaalayo waxna waad ka baranaysaa hadhowna waxay noqonaysaa wax isku xayisay sidoo tiraahid waa kay laababkan aan sameeyey lookadis sana wax loo qabtaa dee shaqada hadhowna real world marka la tagana dee saas wax loo qabanaya wax ka duwan maaha waa intaa halkaa lagu sameeyo unba hadhowna halkaa lala tegaya laakiin maxaa dadka dheer tahay practical labkaasaad soo samaysay qof khibrad labaa tahay oon laakiin mushaar aan la ugu siinayn Okay, waayahay haddaba waxaan isku dayi doonaa Axmedow muxuu ahaa waad maqlaysaa soo ma horta siwan okay cool waxaan isku dayi doonaa waxaan doonayaa horta inaan marka koowaad aad muxuu ahaa timeline muxuu ahaa waxaan ujeedaa in qofku road map xaggan uu ka bilaabaya sidaasuuna u socon karaa road map bal basic ah inaad noo sheegi karto waynu muxuu ahaa markaa dhowr su-aalood oo kala duwan oo mawduucan cyber security aynu ka hadlaynay ayaynu dhalinyarada muxuu ahaa insha allah dhowr su-aalood ka qaadi doonaa markaa u jawaabi doonta hadduu ilaahay idhaahdo road mapka halka ka bilaabayno lase axmed diiriyaa dib uu bilaabaya cyber security-ga waxaan xoogga saari lahaa ama jaamacad digrigeedii gal ama ha gelin qof wuxuu qaban karo oo internetka ka baran kara wey qof computer haysta internetna haysta waqtina haya saddexdaa shay baa prerequisite u ah computer inaad haysatid internetna inaad haysatid waqtigiina aad huraysid afartanka saacad waa la wada haystaa laakiin in loo huray inaan loo hurin baa kala duwan kolkaa wuxuu qofku samayn karaa oo ka bilaabi karaa fundamentalkii inuu barto basic computer skillskii waanu bartaa computer operating system waxaanu ka kooban yahay hardware-kana jira software-adana jira basicaasoo gebigiisaba ku qaadan karaa 1 month oo hadduu raaco weliba standard caalami hadduu raaco waa CompTIA A+ shahaadadaasaa leedahay shahaadada waxba ma baahnin inaan diyaarino laakiin aqoonta CompTIA A+ qofkaasoo bartay 1 month buu siin karaa 1 month markuu CompTIA A+ uu barto knowledge-keedii helo wuxuu ku xigsiinayaa networking we don't need CCNA we don't need CCNB waxaan u baahannahay basic of networking
minimum waa 2 computer se wada hadlayaan waxa ka dhex dhacaya labada computer wada hadalkoodii marka hadduu doonayo structured way inuu bartana CompTIA Network Plus waxaan CompTIA ugu celcelinaya CompTIA xoog waxay saartay inta badan basica marka Network Plus buu qofku baranaya waxba shahaado again uma baahnin inuu laakiin aqoontii barto weeye Network Plus kaasi markuu barto waxaan ugu xigayay Windows Fundamentals qofkina Windows-kii wax ka diyaariyo Windows-ku diyaarinayana waxa weeyaan waa client-ka Windows 10 11 waxaa la isticmaalaa inuu barto siduu u shaqeynayo iyo Windows Server-kii waa system administration-kii systemka sida loo maamulayay Active Directory-gii DNS-kii DHCP iyo wixii la halmaala marka Windows waxaan filayaa iyaduna waxay leeyihiin Microsoft Docs.Microsoft ma filayaa oo learning-kooda ayagu lacag la'aan baa ka dhigan website-kooda haddii qofka halkaa dhex galo oo maalin walba 30 minutes iyo wax badan buu ka baran karaa marka Windows-kii iyo systemskii inuu halkaa ka bartay Linux-na waa loo baahan yahay Linux security-ga marka loo yimaado client ahaan waa loo isticmaalaa serverada inta ugu badan ee wax lagu run gareeyana Linux way badan yihiin marka desktop-kiisa iyo server-kiisaas waa inuu bartaa marka hadda recap ku sameeyo waa A+ on 1 month ku baranay Network Plus maybe 2 to 3 months on average qofka carabka culus lee raaga 3 bilood bay ku qaadanaysaa ka xariifka degdegayna bil iyo 2 bilood bay ku qaadanaysaa marka average let's say 2 bilood baan nagu qaadatay halka 3 bilood baan haynaa waxay nagu xigayaa Windows-kii ayda 3 bilood baan ku baranay Windows Server-kii iyo client-kii 3 bilood bay nagu qaadatay Linux baan u baahanahay isagana inaan baranno Linux markaan barannona ayada maybe 2 months baan siinay halkaasi total waa 5 bilood ba 6 bilood ba 6 bilood 7 bilood ku dhawaad waxaan baranay fundamentalkii computerka networking-ka iyo system administration-ka waxaan ku xigsiinaynaa software development-kii iyo siduu webku weliba u shaqeynaya haddaan xooga saarno ama application in general web iyo mobile ba soo iskeli waan ayadana 6 bilood ee sanadka ka harsan aan focus ka saarno fundamentalkiisa ma doonaynan expert inaan ku noqono sida website qurux badan oo front end-kiisa javascript ku sameeyay back end-kiisa node aan isticmaalno dabeetana sida ka Facebook oo kale ama ka Amazon oo kale u shaqeeyo ma baahnin laakiin basic HTML CSS JavaScript iyo database-kii MySQL waxaan barano ayadana 6 bilood haddaan siino within 1 year qofkii fundamentalka si wacan buu bartay markuu fundamentalka uu soo dhammaystiro waxay nagu xigayay CompTIA Security Plus 3 bilood aan siino aqoonteedii aan diyaarino security-gaan barano wixii intii hore aad soo baranaysay ilaalintiisii weeye terminology-ga la isticmaalo security-ga termiska la isticmaalo security-ga la xiriira weeye aan xooga saarno 3 bilood markaan ku soo dhammeeno qofku markaasuu isagu odhanaya okay waxaan bartay security-gii general security-ga ma bartay foundation-kaygu waa dhisan yahay waxaan xiiseynayaa network security marka network security shirkadihii soo saarayay firewall-ada hadduu Cisco yahay hadduu Fortinet yahay hadduu Palo Alto yahay hadduu Checkpoint ka reeb waa Yahudi weeye shirkadaha kala duwan hadduu yahay waxay leeyihiin qalab ay soo saaraan iyo qalabka sida loo rangareeyo loo isticmaalo barashadiisa marka let's say Cisco ASA firewall buu qofku bartay network security buu leexday marka network security shahaadooyinka laga diyaariyay iyo aqoonteeda markaas uu leexanaya ayuu halka ka bilaabaya qof kale laga yaabaa inuu yiraahdo may anigu waxaan xiiseynay cloud security cloud-ka saddexda shirkadood ee rangareeyay AWS baa ugu caansan Microsoft baa ku xigta Azure kuwa midkood ama mid walba basic uu ka bartay dabeetana qaybtii security-ga xooga saaray mid kale laga yaabo isagu inuu yiraahdo may security committee markaan bartay waxaan doonayaa in ethical hacking-ka barto pen testing-ka pen test certificate-keedii uu saaro qaar baa soo qoray OSCP oo ah intermediate to advanced certificate qaar badan oo ka hooseeya jira oo yara fudud OSCP marketing-ka ama HR-ka ay ku yara wanaagsan tahay waa shahaadooyinka ugu caansan laakiin qaar badan oo ka wanaagsan technically wax lagu barayaa jirta kuwaas oo qofku markaa samayn kara marka intaasi ayay noqonaysaa road map marka within 1 year and a half ama 2 years
beginner to junior intermediate qofku waa ku gaari karaa cyber security ilaahayna uu tala saarto taani aan la ilaawin. That's very good. aad bay runtii u fiican tahay si fiican baad noogu faahfaahisay oo step by step iyo waxa uu qofku u baahan yahay oo dhan. cid haddaba su-aalaha tolow sideedaa ugu macquulsan waxaan filaya axmedo waa xilli dambe walaal saacad iyo dheeraad baynu ku jirnay muxuu aad baad horta u mahadsan tahay waxaynu yeelaynaa un waxa weeyaan wax walba horta dee lama wada hele waxaynu yeelaynaa dhowr su-aalood ayaad insha allah qaadan doontaa oo aad ka jawaabi doontaa dhowrkaas su-aalood waxaan imikaba muxuu ahaaye dhalinyarada u sheegaya waxa weeyaan wax hore looga jawaabay horta markood haynagu soo celinina waa marka labaad qofkan soo qabto please straight to the point su-aashaad hayso keen si degdegana uga bax taasi waa mid tobigana ayaan laga bixin cyber security baynu ka hadlaynaa cyber security wax ka baxsiisan muxuu haayay maanta kama hadlayno so cyber security ha lagu eekaado okay inta kale dhowrka qof soo qabto markaa mute gala markaa saasaynu yeelaynaa insha allah mute gala insha allah صح that's very good okay waxaynu ka bilaabanaa Mr. Axmed oo walaal su-aashaad hayso soo daa insha allah aad baad u mahadsantahay macallin dhammaantiin waqti ma doonaya inaad ka wanaagsan su-aashadan geeya su-aasheed waxa weeyaan macallinka wuxuu yidhi VMware ayaan lala soo degay VMware-na badanaa waxaa ka shaqeeya cajalada ubuntu anigu ubuntan badanaa aan adeegsan jiray waxaan markaa waxaa dhacday ubuntadina waxay ku tidhaahdaa mar walba license expire baa ku haysta muxuu ahaaye aad baad license-kaaga ba dhacay taas sidee lagu xalin karaa su-aashaasaan doonaya inaad macallin iga jawaabto su-aasha labaadna waxa weeyaan maalin dhaweed macallin baa su-aal na weydiiye ahayd sidee looga hortagi karaa inaa sidee loo soo dejisan karaa inta tusaalaan play store-kaad wax kala soo degtay sideed ku sababeyn kartaa in waxaagaasi 100% yahay secure badanaa dadku rating ka eegaan laakiinse ratingka dee haddii la yidhaahdo istiraado 100,000 milyan qof aad dejitaan u dejiso sidee suurtagal u noqon kartaa waxyaabo kale aan ku eegi karo in waxaas yahay waxyaabo free for hacking ka dheer iyo su-aashaas labaadna aan doonaya inaad iga jawaabto maa mariguma wala xitiye su'aalaha adaa yahaynaya ku haya yes su-aasha koowaad waxay ahayd license-ka ubuntaha iga dhacaya buu yidhi so sideen u heli karaa mid license-kiisu caadi yahay oo fiican waa talabaadna applicationska aan kala soo degayo play store-ka aniga oo aan eegaynin ratingka oo keliyaata maxaa kalen ku eegi karaa inuuna bugs iyo waxyaabo kale ku jirin okay su-aasha hore haddii aan si wacan u fahmay ubuntu license ma garanaya ma ubuntu pro buu isticmaalaya in kale waxaa laga yaabaa inuu VMware-ku workstation hadduu VMware workstation yahay 30 cisho trial qofka la siiya ama 15 cisho trial midkood beed I don't know exactly numberka kaasaa u baahan license laakiin Windows waxaan ku aqaanaa inuu free yahay unless Windows Pro uu yahay Windows and Ubuntu Pro-gaasna the service ay ayagu bixiyaan qoladan Canonical ay bixiyaan baa jira waxaan filayaa inuu VMware sheegay VMware player baad isticmaali kartaa free ama VirtualBox Ubuntu Pro-na waad iska dayin kartaa Ubuntu Desktop iyo Ubuntu Server waa free haddii kuwaas aad fahmoodina Fedora aad u leexan kartaa haddii kale Debian baad u leexan kartaa intaas oo dhan Linux intiisa badan waa free software-ka su-aasha labaad software laga soo dejiyey storada ama Google ahaado ama Apple-kooda ahaado ama caadi browser adoo ka soo dejiyey waxaa lagu check garayn karaa waxa weeye software-ka inta badan waxaa la raaciyaa wax loo yaqaano hash waa tiro la generate gareeyay qoladaas website-ka ama application-ka la generate gareeyeen marka ama MD5 buu noqon karaa ama SHA buu noqon karaa inta badan SHA baa la isticmaalaa SHA-1 SHA-2 256 iyo waxaas
marka waa lambar aad soo qaadaysid weeye waad koobiyeysanaysaa softwarekii waad soo dejinaysaa computerkaad la imanaysaa dabeetana comparison baad samaynaysaa softwarada linuxka oo kale waxaad samayn kartaa inaad ku tijaabisid aad tiraahid softwarekan soo dejiyey hashkiisa generate garee dabeetana asbarbar dhigtid kii website-ka yaalay iyo ku computerkaagu soo saaro haddii labada lambar ismatch gareeyaan applicationkaasi sidaad uga soo dejisay website-kaasi ayuu yahay waxba ismu bedelin internetka intuu soo socdo ku soo gaadhay adiga cid waxba kama bedelin oo waa sida ay ku sheegeen inuu caafimaad qabo laakiin inaad xaqiijisid softwarekaad soo dejisay inuu caafimaad qabo waa mutual trust wey waa aamintirkaad ka soo dejisay google oo kale haddaan soo dejinay google chrome isla google ka soo dejinayo dee google waxay ku tiri softwarekan software caafimaad qaba marka si kale aan ku tijaabinaya marka computerka ku shubo isagoo computerkayga dawakhiye mooyaane wax lagu tijaabiyo kale unless la scan garay scankaasna softwareka wax badan kama soo saaray laakiin hashingkaasa la isticmaalo oo integrity check wey saddexdii tier securityga waa ka dhexe integrity check inaad ku samaysid wallahu aclam aad baad mahadsantahay engineer axmedow waxaan filayaa su-aalaha inagaaga jawaabay waxaa intaa ka harsanay adiga license adigay ku yihiin layliso waa inaad adigu baadhato integrity checka iyo muxuu hayay ubuntu-guna waa open source aniga laftaydu waan isticmaalaa most of the time waa free oo marka ubuntu desktop kuwa kale check ubuntu desktop labadii kale ubuntu macaan ku sheegaysa ubuntu de waa ubuntu basically waa muxuu ahaa waa server iyo waa desktop ka browga download ka caadiga download galay ay ka caadiga maxaa raacsan talo just ubuntu wax ma waa linux operating system ubuntu ku qor ay macluumaadsan ay thank you very much waxa ku soo xiga Mr Anonymous soo dhawo walaal su'aalaha hayso soo daa kuna dhaqso السلام عليكم واي وانا وضع هاي سؤال له دقيقه مالي مقليا سؤال كوباد waxa weeyaan macalin cyber security maadaama uu broad yahay inkastoo aad qayb ka sheegtay bal roleska ama specializationka lagu takhasusi kare muddada dheer mustaqbalka bal inaad noo yara faahfaahiso waa kow su'aasha labaad ee aan doonayna ku weydiiyaa waxa weeyaan cyber security marka lagu jiro waxa jira blue team red team ama defense iyo offense marka marketka adigoo eegaya hadda iyo mustaqbalka dhow teamkeeba yani mustaqbal fiican leh ma inaad defense-ka ku biirto mise blue team-ka mise red team-ka baan u jeedaa su'aasha kale saddexaad ee doonayna ku weydiiyaa waxa weeyaan certifications baa jira badan oo la qaato cyber security-ga oo security plus ka mid tahay badankana shaqooyinka waa lagu soo xidhaayo requirementska shaqooyinkay ku jirtaa qofka certificationka inuu haysto certifications markaa su-aashaan doonaya inaan ku weydiiyo waxa weeyaan shaqa ma kuga caawin karaysa inaad hesho yani guarantee miyay tahay haddaad certification qaadato adigoo dee skillskaaga kalena dhisay inaad ay kusoo saarto mise just interviewgaad kusoo baas garaynaysaa hadhow baa aday kugu xidhantay waxa kale waad mahadsantahay waayahay thank you very much su'aasha tuugu horeysa Vicky Blander waa mahadsan yihiin su'aalihiisa waa badnaayeen oo ballaarnaayeen alright the first one waa taytalada la xiriira shaqooyinka cyber security u fara badan yihiin shirkad walbana internally waxay samayn kartaa title u gooniya marka kuwa commonka caanka waxaa ka mid ah cyber security analyst network security engineer mid walba markaa dad google garaysid shaqadu qabanayo generally waad arki kartaa roleskiisa markaa titladu ma yeedhin doonaa waxaad maqli kartaa information security officer ISO waxaad maqli kartaa chief information security officer oo CISO loo soo gaabiyo waa maamulada sare ama cyber security manager penetration tester SOC analyst taytaladaasa ka mid ah taytalada caanka ka ah ee adduunka laga wada isticmaalo marka mid walba shaqadu qabto iyo roolka lagu baahan you can do your homework and google it su'aasha labaad ee blue team iyo red team keeba offensive iyo defensive midna waa mid weerar qaadaya systemka weerar ku qaadaya si uu ka soo saaro daldalool u leeyahay iyo mid marka systemka daldalada laga soo saaro difaacaya batchingkii sameynaya oo awdaya marka qoladaasna waxaa loo yaqaanaa blue team
waxa suuqoodu mar walba loo baahan yahay waa qolada defense-ka. Offensive-ka isagu shaqooyinka la soo xayeysiiyey pentest uu ka mid yahay ama red team-ku way kooban yihiin. laakiin kuwa wax difaacaya ama cyber security analyst ha noqdo ama SOC analyst ama SOC manager ha noqdo ama information security officer ha noqdo ama cyber security engineer ha noqdo waa qolo systemka difaaciisa qaabilsan. marka hore way dhisayaan, way difaacayaan, way monitor gareynayaan. marka kuwaas suuqoodu xaami yahay. labada xirfadood inuu qofku bartana waa wanaagsan tahay. shahaadooyinka la xidhiidha cyber security way fara badan yihiin. haddii imka aad ku qortid committee aan filayaa inay meel isku soo ururisay kuwa ugu caansan. marka waa aad bay u fara badan yihiin. shahaadadu inteeda badan, shahaadooyinka intiisa badan waxa weeyaan HR gate-kun baa lagu dhaafaa. xirfadii adigu aad lahayd waan ku shaqeynaya shahaadada waxba sheegi maysa haddii aanad configuration aanad samayn karin. haddaad markaa tiraahdo waxaan ahay CCNP security matalan oo siska waxaan ka aqaana network security-geedan shahaado ka haysta oo 3 shahaado ka qaatay oo firewall configuration-keeda aanad ku samayn karin, dee waa shahaadadaas waxba ma tarayso. waxaa laga yaabaa inaad HR-ka ku dhaaftid oo liiska lagu soo daro short liiska, laakiin marka interview lagaa qaadayo imtixaan lagaa qaadayo lagu dhahdo maxaan configuration ku samee ama su'aalaha ka jawaab, in aad waxbaba ka sheekeyn kar weydid baa suuragal ah. marka knowledge in la helo ayaa muhiim ah. certificate-kaasna knowledge-kaasi ayay wax u taraysaa iyo suuqeeda albaabadeeda kuu furaysaa. laakiin waxa actual wax kuu qabanaya waa knowledge-kaad baratay iyo khibradaad samaysatay. intaasa igaga fulan wallahu aclam. yaa ku xiga waxa ku xiga aad baad u mahadsanta Mr. Anonymous. waxaynu ku xigsiinaynaa markaa muxuu ahaayey it's Ecta. soo dhowo walaal. ma wiil baa mise waa gabadh? Wandoo walaal gabar weeyaan. soo dhowo su'aalahaad hayso soo daa walaal. Okay, waxaan isku dayaa inaan soo koobo. Ustaadka waxa uu diinayaa 2 su'aalood oo ka kooban oo aanan si dhiibli maadada u sii gelin aan kor ka weydiinayo. Su'aasha koowaad waxay tahay markii anagu aan nahay ardada joogta wadanka oo jaamacadaha la joogo, maadada cyber security markii la dhaho sida ay badanaa ardada u baranayso ama fikradaha ka haystaan waxay tahay in maadada ay tahay maado in wax lagu jabsado, shirkad wax ku leeyihiin company baa lagu dhacayaa, ii sheeg shirkad baa ku jabsananaa, waxaas lagu sameynaa. macnaha fikradda negative waxay ka aaminsan yihiin baa waxay tahay si negative u qaadanayaan, casharada u baranayaan. marka fikradda laga haysto ardada ay ka haysato iyo dadka badankoodu waxay tahay in cyber security ay tahay maado jabsiya. wax ku leeyihiin xogtan baa jabsananaa, shirkadaasan jabsananaa, company-ga. marka su'aasheedu waxay tahay fikradda fikrad khaldan soo ma ahan. talabaadna su'aasha kale oo aan ku weydiinayno waxay tahay ii sheeg marka la joogo wadanka maadadan maadaama adoo aad ku dhex jirtid haddaad qiimeysid ma ka mid tahay maadooyinka aad leedahay wadanka si important bay u tahay future term-kan soo socdo, macnaha sanadahan soo socda waa maadooyinka aad looga baahan karo wadanka waana ka baxee. waayahay waad mahadsan tahay. waxaan filayaa su-aasha koobaad waa misconception ama myth weeye qofku iska sawirtay. waxaa laga yaabaa inay Mr. Robot serious-kaa soo yara daawadeen oo wax la jabsanayo dabeetana qof computer daba fadhiyo runtii iminkaan axmedow iminkaan niyadda ku hayey oon islahaa ku dhee maxuu ahaayey ka waran qofku inuu daawado Mr. Robot wax ma ka faa'iidaya weydii baan islahaa. waxaa laga yaabaa inuu wararka ku arko shirkad baa la jabsaday intaasoo lacaga. marka qofkii waxaa gelaya inuu waxaan loo isticmaalayo in a bad way. in a good way-na waa loo isticmaal karayo dadkii xogtoodii shirkadaha wadankeena xogtay hayaan iyo lacagtay hayaan inuu qofku yidhaahdo waan ilaalinayaa oona u baranaya cyber security-gisna oo dhinaca positive-ka oo advantage-ka la weeyey. marka waa runoo dadkeenu iyo caalamka intiisa badan qofka marka la idhaho waa hacker oo kale dee waxa weeye dib baa lagaga istaagaya, qof walba mobilkiisaas u qarsanaya. hadduu in yar koras uu ka yara bartana waxaa laga yaabaa inuu markiiba yidhahdo Facebook baan jabsanaya, inuu kula soo caro yidhahdo Facebook loo jabsada oo kale. maxaad u jabsanaysaa Facebook waba lihide. marka waa wax qofku maskaxda la doonaya in laga meero wash baa loo
marka taasi teamka cyber security ku jira ayay u baahan yihiin awareness badan wacyigelin badan dadka uu siiyo. Su-aasha labaadii waddanka miyay ahayd wax kusoo kordhaya ama wax lagu baranayo courses-keeda miyay tahay? saas ahayd talo su-aasha labaad. waxay ahayd sug mute baad Cabdiraxmaan. ma la odhan karaa cyber security-gu waa muxuu ahaayey waa fields aad loogu baahan yahay waddanka oo mustaqbal wanaagsan ku leh. adink horena waad uga jawaabtay inaad kusii rageejiso bay u baahan tahay inantu. As long as haddii computer uu jiro internet la isticmaalayo cyber security waa loo baahan yahay oo ilaalintiisa waa loo baahan yahay. CCTV kamaradaha meelaha lagu wada xidhay qofkii ilaalin lahaa baa loo baahan yahay. mobilada la isticmaalayo qofkii ilaalin lahaa baa loo baahan yahay. kombiyuutarada la isticmaalayo qofkii ilaalin lahaa baa loo baahan yahay. shirkadahan taawarada isticmaalaya qofkii ilaalin lahaa mar walba waa loo baahan yahay. mar walba technology internetka lagu xidho khatartiisa u wataa. faa'iidana waxa u tahay dadkii security-ga ku jiray waxay helayaan dee chance fara badan oo wax weeyaan marka wax walba dee halkeenan smartkuna soo gaadho smart house-kii smart car-kii smart watches-kii baan maraynaa smart devices-kan ay soo farabataan qofkii ilaalin lahaa waa qof security-ga bartay marka mar walba suuqiisu waxaami ilaa uu bahladaasi computerkaasi ma garanaya dagaalka adduunka lagu kala baabinayay bahlada computerka markaa adduunka ka baxay bal manay safe lagu noqonaya markaas un baanay muhiimad lahayn laakiin inta ka horeysa aad nooshahay waxaa laga yaabaa inuu faa'iidadiisu taagan tahay demandkiisu iyo baahidiisuna ay taagan tahay. jaamacadahana waan jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo. I think Amazon baan ka bilaabay computer security and privacy 2019 kooraskii ugu horreeyay cyber security la dhigo marka ma garanay jaamacadaha kale inay imika bilaabeen. FFU-na waan ka dhigay Timcaddana waan ka dhigay so saddexdaa jaamacadood course cyber security curriculum-kiisa waan diyaariyey. jaamacadaha kale warka ma hayo. aad baad u mahadsantahay engineer. waa yahay aynu u gudubno Mr. Garaad Iftiin soo dhowo walaal oo soo daa su-aashaada adiguna. engineerka waynu fasaxaynaa waqti badan buu ina siiyey marka maxaad su-aal haysaa talow Garaad? muudka iska qaadda Garaad. malaha muudka Mr. Garaadow arma jooga ninkaasi malaha u seexday. cabdiraxmaan waa mahadsantahay thank you. mood baa maaragta ku yara jiray marka injineerkana waan salaamaya. nin waxaan qabaa 3 su-aal anigoo maaragtay waqtiga ka faa'iidaysanaya. su-aasha koowaad waxaa waaye horta waxaan joognaa dal hadda dhismaayo waqti badan qaadanayo inuu maaragta lagu soo kordhiyo koosaskan sida hadda la sheegayo cyber security camal marka waxaan weydiin lahaa injineerka ma lagu baran karaa online anoo ka faa'iidaysanaya fursooyinka ay bixinayaan jaamacadaha kale adduunka bixinayaan sida maaragtay jaamacadaha recognizedka internationalka mise xitaa even established website sida like hadda Coursera iyo kuwan online ma ku baran karaa? That is the first question. Second question aan rabo waxaa waa inaan weydiiyo inta badan qofka markuu maado ku takhasuso uu barto oo waqti geliyo wuxuu hamigiisa yahay inuu maadadaas ku shaqeysto mise si private ugu shaqeysto si public ugu shaqeeyo oo government-iga iyo meelaha institutionada ka shaqeeyo mise si maaragtay self employment oo kala samaysto si isaga shakhsigiisa marka fursadaha u badan maaragtay course-kan la xiriira cyber security-ga ma dowal janisa mise wixii la xiriira inta badan inuu qofka si private ugu shaqeysto? That's the question haddii uu fahmin engineerkan waa ugu celinaa. tan saddexaad waxaa waaye inuu inta badan dad waxaa jira waan soo course-ka waan soo baranay ku dhahaayo oo arkaysid inay wataan shahaadooyinkii laakiin haddii aad su-aal weydiisid aan sharaxi karin soo marka inta badan taas waxa keenana dadka waxay ku leeyihiin practical iyo waxyaale aysan baran inta madaxa ma sameeyna marka waxaan rabaa engineerka inuu noo faahfaahiyo qofka si uu effective aga dhigi karo inuu ku takhasuso uu maaragtay course aga dhigi karo waxyaalo ilaa waqti intay ku qaadanaysa like 5 years like 10 years like 2 years like 3 years ilaa waqtiga duration-ka loo baahan yahay dadaal iyadoo la socoto. waana mahadsantahay. thank you. adiga mudan Cabdiraxmaan haye what was the first question?
The first question was, oh my god, aniga lafteedii way hoos martayba. Okay. Kuwii dambe aan ka jawaabo intuu garaad soo celinaya. Wuu inoogu celinayaa taa hore wad. Yes. And yes, may waan xusuustay. Ha, jaamacadaha dibadda opportunities ma laga heli karaa bay ahayd. Yes. Alright. And online waa lagu heli karaa. Open University may ahayd, I think UK ku taale or somewhere there. Haddii aad Google aad soo furtid oo dabeetana aad baadhid cyber security free courses oo online ah ama university ha noqoto ama platformyada kale ha noqoto, waxaa laga yaabaa inaad wax fara badan aad ku aragtid mid u qaado dabeetana haddii aad xooga academy iyo jaamacad warkeeda raadinaysidna waad ka helaysaa. Haddii aad ka raadinaysid courseska specific to the subject matter oo matalan penteskii ama defensekii ama red teamkii waxaasna waad helaysaa. Intooda badani waxbarashadu imika waa virtual, waa online bay isku bedeshay. Marka aniga lahaa waa in loo baahan yahay internet iyo computer iyo qofku waqtigu inuu horo, wax walba free baad ku helaysaa. Vast majority free baa lagu helayaa oo YouTube baa kugu filan ba. Maalin walba SQL injection baad doonaysaa inaad baratid ama weerarka lagu qaado database oo kale, YouTube-ka dad ku qortid intaasoo video baa ka soo baxaya, mid Carabi ku hadlay, mid Soomaali ku hadlay, Soomaali garamaya, mid English ku hadlay, mid Amhari ku hadlay. Marka kad ka fahmaysid baad ka qaadan kartaa. Marka online waa buuxaa. Su'aashaas waa su'aashii koobaad. The second one, Allahumma salli ala Muhammadin. halkaygii GB waa buuxsamay. Cabdiraxmaan oo su'aasha labaad maxay ahayd? Su'aasha labaad maan maqlayn. So garaad wuu inoo fadhiyaa. Garaadow su'aashii labaad walaal ku celi adoo raaliya. Su'aalo aad waxaan u fiican maleynayaa baad xoogaa weydiisay. waxaan u maleynayaa codkaygii aad maaragtay maqli weyseen iga raali noqda. su-aasha nin oo labaad waxaa waaye inta badan qofka markuu barto uuna ku takhasuso uu qaato waxbarasho heer sare ilaa jaamacad wuxuu inta badan hamiyaa inuu ugu shaqeeyo si private ah inuu ku shaqeysto mise inuu public institutionada uu ka shaqeeyo. marka inta badan course-kan cyber security inta badan intuu kaa caawinaya inaad maaragtay inta badan aad shaqooyinka heshid like ma double janisa labada dhinac ma ka helaysaa shaqo oo fursado badan ma yeelo mise inta badan waxay la xiriirtaa inaad si private ah ugu shaqeysatid. That's the question. Okay. Taa labaad aan ka tan jawaabo. saddexaadna waxaa waaye Garaado ugu celiya hal mar intaan ii kaadi garaado ta saddexaad ii hay labaad baan sii deynaya haddii kale waa last in first out bay ku noqonaysaa. Taa labaad aan ka jawaabo. Qofku markuu barto xirfadii cyber security-ga uu shaqo raadinayo, haddii uu the business ka abuuri karo oo uu arko opportunity-ga oo fursadda uu arko uu samayn karo inuu sameeyo wanaagsan. Haddii aanu fursaddii aanu arkayn inuu shaqo ku raadsado oo capital xoogaa lacag ku sameeyo dabeetana hadhow businesskiisa uu sameeyo ayaa wanaagsan. Marka doonaysid inaad business ku furtay cyber security marka hore waa in laga yaqaanaa areada aad joogtid oo xariif ku tahay oo dee saleskii xirfadeedii leedahay, marketing xirfadeedii leedahay, ama dad xirfadaan le ay kuu joogaan oo servicekaagii ama product baad iibinaysaa ama service baad iibinaysaa ama qalab baad iibinaysaa ama waa service. Inta badanna waa service maadaama cyber security xirfadii aad haysid. Marka cid kuu iibgeysa ama adaa baranaya ama waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammadin ama qof kale xirfadaa leh baad hire garaysanaysaa kula shaqeynaya. Waxa fududse inuu qofku marka hore ku shaqeeyo uu barto uu suuqii soo galo industry-gii network ku samaysto uu asxaab iyo dad uu bartaan network ku samaysto dabeetana hadhow hadduu doonayo uu arko opportunity uu service ka iibin karo servicekii uu ka iibiyo. Su'aasha labaad waa taas, wallahu aclam. Saddexaadna saddexaad sii daa. okay waxaa u fahay engineer su'aasha saddexaad waxaa waaye dad waxaa arkaysaa arday soo baratay mise dad xitaa waqti badan soo baranayay haddana markii laiskugu imaado meelaha forumka mise xitaa qofka aad damacdid inaad su'aal ka weydiisid wax yar inuu ku fahansiiyo topic ka mid ah qofkii uu maaragtay galaya qalqal mise uusan xitaa even uusan si fiican wax u sharixi karin oo dareemaysa inuu qofkan uusan takhasus weyn ku lahayn inkastoo uu shahaadooyinka wato. marka ilaa
waqti dheer ilaa waqti uu qofka ilaa intay ku qaadan kartaa juhdi ilaa 10 sano 5 sano inuu ku takhasuso u noqdo qof maaragtay cyber security specialist ah oo maaragtay ma sheegayo macnaha qofku inuu 20 sano uu ka shaqeynayo oo experience ilaa ma sheegayo waxaan sheegaa barashada hore oo qofka inuu wasaga barto intuu shaqo gaarin inuu ku shaqeeyo intii gaarin intuu barto way jiraan dad markii ay 2 sano 3 sano camal dhigtaan intii ay garanayaan ku sii shaqeeyo oo ku sii maaragtay improvement badan sii sameeyo laakiin waxaan sheegaa qof time geliyay jaamacad aaday soo dhameeyay ilaa 5 sano ilaa 10 sano marka ilaa qofka intay ku qaadanaysaa inuu cyber security specialist noqdo oo maaragtay uu qofkaas ayada uu jaamacad ka dhigi karo dawladda ugu shaqeynaa ku shaqeyn karo haddii private sector uu ku shaqeyn xitaa company uu furna xitaa uu service-kaas ku bixin karo si fiican ku fahmay way injineer way waad mahadsan tahay waxa weeyaan qofka kule yimi yidhi xirfadii waan hayaayo cyber security-ga dabeetana marka dhowr su'aalood weydiisaan uu garan waayo de horta ceeb maaha inuu qofku garan waayo qofna ma jiro in wax walba uu ka warrami karo waana loo cudur daaraa qofka judgmentka iyo in la maxkamadeeyo qofka inta badan inta iska ilaalin kartaan iska ilaaliya hadduu idhaahdo waan garanayaa anuu sharaxa ahlan wasahlan hadduu idhaahdo ma garanayo ama aad aragtid inuu xoogaa iskaga yara dhegdhegayso dowrdaaru raadi waxaad tiraahdaa maanta malaamuu soo qadeen oo waxbaa yar hoos maray marka internetka u leexo soo guulguul garee laakiin skillskaasaan aqaanaa xirfadaasaan aqaanaa shahaadooyinkaasaan haystaa sidaas uu kugu yidhi dee okay baad odhanaysaa samcan wadaacan expert sidaa lagu noqon karo expert way yara fog tahay horta beginnerkii baan maraynay waxaan soo qabsanay road map baan soo sameynay intii hore aan kasoo sheegnay ilaa waxaan yidhi sanad iyo badh hadduu qofku fundamentalka sanad kusoo dhameeyo dabeetana cyber security committee iyo security plus 3 bilood iyo waxaas ku qaadato adigu muddo sanad iyo badh uu ku dhex jiro oo maalinkii uu saacado gelinayo maaha bil baa la baranaya bisha kale waa la seexanaya a daily basis qofku jimco kale dad fasax qaadatid 6 maalmood soo haray min 1 hour waa 6 saacadood usbuucii oo qofku wax barto dee waxa laga yaabaa in 6 cisho aad ku dhufatid 4 week intaasoo saacadood ka soo dhalato 4 saacadood ku dhawaad meelahaas ka soo dhalato bishii marka qofku hadduu sidaa ku wado within 1 year or maximum 2 years leh let's say 2 years qofka junior ilaa intermediate buu ku gaari karaa cyber security expert level markuu ku gaarayna waa 10 years plus ama 15 years plus kolba expert sida loo qayaxaya ku xidhan tahay marka waqtigu gadaal xagga dambe uu ka iman doonaa laakiin udub dhaxaadka foundationka qofku marka hore uu dhiso sanad iyo badh baa ku filan oo dabeetana marka dambe uu sii socdo waad mahadsantahay wallahu aclam thank you very much engineer aad baad u mahadsan tahay cadnaanow imse su'aalood baad haysaa waa qofkii ugu dambeeyay baad noqonaysaa insha allah muxuu ahaayey injineerka markaa waynu fasaxaynaa maxaad su'aalahaad hayso imse su'aalood baad haysaa kana gaadhsii cadnaanow ma lagu maqlayaa laguma maqlayo okay I think microphone ka xumaan filaya okay so engineer aad baad u mahadsan tahay muxuu ahaa runtii maaragtay waqti badan baad maanta na siisay su'aalo badanna waad maaragtay ka jawaabtay dhalinyaradana waxaan rajaynayaa inay wax badan kaa faa'iideen muxuu ahaayey insha allah live-kana uu duubmaa kolley automatic wuu duubmaayo waxaan samayn doonaa waxaan kusoo upload garayn doonaa YouTube-ka ama Facebook insha allahu tacaala marka engineer aad baan kugu mahadnaqaynaa muxuu ahaayey waqtiga aadna siisay ilaahay ka ajar siiyo hadduu ilaahay idhaahdo aad baad u mahadsan tahay waana xilli dambaan filayaa shaqana way ku sugaysaa waynu garanaynaa marka nabadgal dee wakuka aad baan kuu salaamaya waad mahadsantahay walaal thank you very much tiimka intana dhegeysanaysa noo dulqaadatay intaasoo dhan inay dhegeysato hal boonjun baan ku dari lahaayo dabeetana waan ka bixi wixii aan kasoo sheekeynayna caawo dhanna waa technical skill bay ahayd yaan la hilmaamin soft skills communicationkii aa ka mid tahay teamworkii aa ka mid tahay allahuma salli calaa maxamedin waxyaalahaas ay ka mid yihiin soft skillskana xisaabta lagu darsado oo labada dhinacba loo baahan yahay labada xirfadoodba qofku uu baahan yahay si uu u dhismo presencekaaga iyo muuqaaga internetka iyo ka
bannaankaba isaga fitarkiisu waa inuu muuqdaa waa in aad xirfadaad baratay in qofku is-iibin karo ood is-iibin kartid taana xooga saar haddii aad xirfaddii ugu wanaagsaneed aad haysatid laakiin aanad qofna ka dhaadhicin karin cidina wax laga yaaba inaan waxba markaa kuu tirsan waxaagi waanad iibin kartaa waxaad qofka tus kartaa inay baahidaasi jirto ka dhaadhicin kartaa xalkeedina aad soo bandhigi kartaa intaasaan filayaa inaan hilmaamay markii hore aan doonaya inaan ka dabageeyo waa iga dhantahay waanad mahadsantahay cabdiraxmaan asalaamu allahi calaykum engineer thank you very much habeen wanaagsan walaal aad baad u mahadsan tahay thank you very much waan iska warhayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo insha allah asalaamu calaykum calaykum salaam walaal waxaan filayaa inaad wax badan faa'iideen maanta raallina ahaada dad badan oo maaragtay su-aalo doonaya inay weydiiyaan jiray oo maaragtay imika waqti badan buu runtii muxuu ahaaye qaatay marka warka keena dee so wax ma laga faa'iiday muxuu ahaayey maxay idinla tahay waxaynu doonaynaa tiktok inaynu maaragtay bedelno maaragtay dhaqankan ka jira wax macnala inaynu meesha maaragtay la nimaadnaynu rabnaa oo dadku at least wax ka faa'idi karaan muxuu ahaayey topics badan inaynu meesha keenno dad badan baa maaragtay aan garanayaa expertisa oo aynu keeni karno insha allahu tacaala muxuu ahaayey marka meesha wax fiican inaynu maaragtay kusoo bandhignaynu u baahannahay anuu at baanahay maaragtay so topicska at-ga waxyaabaha yusufka dhomen insha allah isku dayi doonaa inaynu halkan liveskiisa iyo waxyaabihiisa ka qabanno yeah that's very good masha allah aad baad umahadsantihiin dhammaantiin and it was very interesting thank you very much mar walbana insha allahu tacaala waxaynu isku dayeynaa muxuu ahaayey imika topican in aynu maaragtay soo qaadano aynu eventkan liveka a samayno waxa muxuu ahaayey fikraddu waxay ka timiday maalin baan soo dhigay video waan idhi maaragtay muxuu ahaayey in lasoo bal maxay idinla tahay aynu ka hadalnaa ama yaynu soo casunnaa topic noocye baynu ka hadalnaa marka dadka badankoodu cyber security bay yidhaahdeen marka aad baad mahadsan tahay walaal marka muxuu ahaa topicgii waynu ka raagnay oo ramadaanta dhexdeedii bay ahayd waqtigaa iska adkaa then markii u dambeysay insha allah waa taasoo waynoo hirgalay marka topics kale oo badan baan runtii miiska saaran oon doonaya aniga laftaydu inaynu maaragtay soo casuulno dad kale oo dhalinyaro ah oo khubaro ah oo cyber security imika waynu haynaa software developmentka in badan baan ka hadlay aniga laftayda software developer ah inkastoo isaga laftiisa session u samayn doono waxyaabo kala duwan aynu ka fargaraynayno waxa kaloo aynu samayn doonaa cryptocurrency iyo blockchain ayaa maaragtay su-aalihiisu aad u bateen iyagana waxaynu soo casuumi doonaa qof expert ah okay so network engineer expert waynu keeni karnaa insha allah ai yes that's very important so cloud computing exactly and data science crypto is very important yes so insha allah waxaas oo dhan waynu maaragtay keeni doona hadduu ilaahay idhaahdo dee warka keena oo maaragtay so khayr iyo baraka maaha insha allah marka and by the way accountku wuu xanibnaa bal ka warrama saddexdii cishe lasoo dhaafay accountku live maan geli karaynin calaykum salaam cabdiraxmaan soo dhawoola live maan geli karaynin regionkaygaan bedelay oo maaragtay wuxuu ku xidhnaa Africa like Somalia ku xidhnaa then markan halkan imiday baan bedel istiri wuxuu yiri ma bedeli kartid muddaan sugayay then markan bedelayba wixii oo dhow iga xanibay life man geli karaynin for like 3 days marka life na man geli karin post man dhigi karin waxa ma samayn karin maantu already muxuu ahaayay la sii daayayba marka life kana muxuu ahaayay waan soo yara waan idin sheegi doonaa markan soo dhigo muxuu ahaa YouTube ki waxyaabahan soo dhigo which state joogta cabdiraxmaan California deganay California jooga marka insha allah YouTube-ka I think baayahaygu ku jira YouTube-ku waxyaabo badan maan bilaabin inaan soo dhigo oo videos badan maan soo dhigin oo content badan maan soo dhigin waxyaabaan TikTok soo dhigaan marmar ka koobiyeeyaa laakiin insha allah waxaan isku dayayaa muxuu ahaayey
inaan content fiican oo useful ah isaga laftiisa soo geliyo. And yeah, I do have a LinkedIn, but I seriously don't use it that much. So Abdurrahman Bashi haddaad ku qorto I think waad helaysaa Abdurrahman Bashi. So oh, I'm Seattle cybersecurity asset. MashaAllah, that's very good walaal. That's very good. And waynu isbaranaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. And marka YouTube kan soo dhigi doonaa live-ka oo dhammaystiran insha allahu tacaala. halkaas idinku eegi doontaan. I think baayahaygu ku jira, so baaya markaad profile-ka tagtaan oo arka linkiga YouTube-ka halkaas yaala ku dhufto oo you know like soo subscribe gareeya halkaas ka heli doontaan. waanan idin notify garan doonaa insha allahu tacaala. habeenku ha idin wacnaado, idinka habeen bay idinta baan filaya, anaga maalin weeyaan 11 duhurnimo weeyaan iyo 50. marka insha allah waan noo samaynayaa waa idinka maalin wanaagsan, habeen wanaagsan everywhere aad joogtaan insha allahu tacaala. That's very good. Doing computer science. Nice to meet you, bro. Take care. Hamoud, walal, take care. Thank you very much. Wa salaam ya dhamantiin.